noloshu waa mid qaraar oo xanuun badan marka aadan haysanin awood aad ku shaqaysato sidoo kalena aysan jirin cid ku maqan oo aad maciinsato sida qaraabo ama wax aad dhashay. aadan salaad faarax waa aabba Soomaaliyeed 100 sano jir ah oo ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab ee gudaha dalka Kenya. aadan salaad faarax waxa uu dhalay 6 carruur ah balse waxa uu maanta dunida ka weheshadaa oo uu la nool yahay 2 ka mid ah kadib markii Rabbi intii kala laabtay. nolosha sidaas aabbahan Soomaaliyeed waxa kaliya uu sugo ama uu quuto waa waxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada adduunka WFP ay ka bixiso xeryaha qaxootiga Dadaab oo ah murdi iyo qamadi aanan lahayn wax markaas koosaar ama lagu qooyo. aabbahan ayaa waxa uu la daladhacayaa xaaladda aadka u qalafsan ee ka jirta xeryaha Dadaab. intaas waxa uu sii dheer xanuun cunno la'aan iyo waliba in uusan haysanin hooy uu ka galo cadceedda iyo dhaxanta. aabbahani ayaa waxa uu markaas ugu baaqaya ama cabasho u dirsanaya dhammaanba muslimiinta Soomaaliyeed ee khayraadka jecel in ay soo caawiyaan soona garab istaagaan bulshada qaxootiga ee agagaarkiisa ama jaarka la ah way ku daaleen iyo masaajidaba. mar aan si hoos u wareystay ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay bulshada sida gaarka loo midibtikooro marka ay joogaan xeryahan qaxootiga Dadaab ee lagu xanta midgada. waxaan dhammaan muslimiinta si naxariis la uga codsanaynaa in ay soo garab istaagaan aabbahan Soomaaliyeed ee la daladhacaya xaaladan xanuunka badan. qof waliba waa uu dareemi karaa dhibka maanta haysta aabbahan Soomaaliyeed sababtoo ah waa waayeel 100 sano jir ah oo u baahan in si gaar ah loo daryeelo balse aanan haysanin. qof walba waa uu dareemi karaa nolosha iyada ah. aabba Soomaaliyeed 100 sano jir ah haddana aanan haysanin hooy cunno iyo waliba daryeel caafimaad waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay. haddana dadka uu la nool yahay ee uu haysto waa dad aanan isku filneen maadaama gabar ka mid ah gabdhihiisa ay dhimirka laadahay oo lala daladhacayo haddana xaaskiisa maqalka ayay naafo ka tahay oo ma awoodo xitaa in ay raadiso qutulyoonka reerka. anigu waxaan ahay magacayga aadan salaad faarax xerada qaxootiga ee ifanuura ayaan ku noolahay. wax ilaahay abuurtay oo ii shaqeeyana ma jiro. dadkayguna waa 6 wax ii shaqeeyana ma jiro. marka sidaas waxaan ka codsanayaa muslimiinta dhibkaasaan qabaaye inaa wax la iigu taro. muslimiinta oo dhan inay wax igu taraan baan u baahnahay. muslimiinta oo dhan inay wax igu taraan wixii codkayga haddii ilaahay ka dhigo uu gaadhi karo iyo kaygiiyo kiinaba uu gaadhi karo oo muslimiinta in wax laygu taraan u baahnahay. waxaan jiraa 100 sanadkanaan 100kii ka galay. marka dadna waxay ag jooga 4 gabdhood 3 gabdhood bay ag jooga mid way dhimatay 3 baa hadda ag jooga. marka waxaan u baahnahay in wax laygu taro oon yani muslimiinta ka codsanayaa. muslimiinta waxaan ka codsanayaa in lay gacan qabto. waad aragtaan meesha aan galo gurguurad baan ku tagaa musqusha ma dhisin waa layga joojiyey. waad aragteen baan u malay. marka waxaan u baahnahay in muslimiinta wixii tabartooda laygu taro yaan u baahnahay. daryeel fiicanna ma haysto oo wax waagi hore laysiiyey ma ogeeye. gogol ma haysto waxaan cuno ma haysto. caanahaas in la ii qaso ma ogeeye. cunno dib u laqamahayo 4 sano bis sanadkana ka 4 intaan jiranaa.